هلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن وانيدن سلامي bulshada Soomaaliyeed waxaan arkayay waxa weeye inankii raacato share dad badan oo waxa weeye aruskiisa ka soo falceliyay oo ku dhagan waxaan idan leeyahay wiilkaasi yar ee faniga ee Soomaaliga ee wadaniga dhabta iyo marwadiisa dumaashi maslaxa hebel saalax haddaad ka qalayn weydaan oo laga wareejin waayo waxayna la soo hadlayo waa jeeshka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada sida qaas oo tababaran jumla kumdo hay khadar maxamed aad iyo aad waxaan leeyahay ka leexda هذه اللي قال لي حن ويا محل هذه اللي قال لي حن ويا والله محمد هذا والله بالله والله حبل اسكل دعيا والله قريها اللي يدك سوق لي والله قريها اللي يدك سوق لي هي الجيش كم حتى بسم الله انا اقول الجيش waxaan ahay odaygiis ama nabadgoonkiis صح ama ummadda Soomaaliyeed nabadoonkooda waa sax waxyaalo badan dhaqan badan oo Soomaaliyeed baan aqaan Soomaalidu way kala dhaqan duwan tahay laakiin dhaqamo badan boqolkiiba 8 boqolkiiba 95 baan dhaqanka Soomaaliyeed waa sax waan wada aqaan ma dhahan hay dhaqanka Soomaaliyeed waa macnaha hadda kala qaybintan iyo dhagaxtuurkan iyo mooyana dhaqanka Soomaaliyeed isku mid waa sax adoo raali jeesh wajigaada ma nafsi kartaa misane aad iyo aad dhibaato ma laha arrimo badan oo xasaasi ah oo weed badan oo tis karin waa sax ka socdo aad iyo aad dhibaato ma laha laakiin waa aad iyo aad waa dareemi kartaa waa sax runtii waxa gabagabada muhiimadda waxa lagu soo gabagabeynayaa kaleex waa lagu digay kaleex digniin kaleex ato shariic oo adigana walaal horta sidii ugu gaarsiiyay ato shariic asxaabe hal la gaarsiiyay ato shariic iyo hebla maslaxa saalax wasaas ma leeyahay aad iyo aad wada salaamay guliga gabadhnimada leeyahay haye soo aftar hal qodob baan ku darsanayaa marka ato shariic iyo gabadhiisa hay horta doorashada Ilaahay iyo doorashada dadku way kala yihiin Ilaahay baa isku dooray waa mustaqbal waa dad Soomaaliyeed waa muslim bay dhalayaan waa dad muslima waxaan rabaa on ka codsanayaa bulshada ku jirta ma garanaysaa social media ku jirto waxaan ka codsanayaa arrintaasi arrimihii la dhaxgali jiray maaha wixii laga xishoon jiray weeye dhaqanka Soomaaliyeed reer dhisan anagu waxaan u taaganahay diinta muslimka mid ma laha iyo bulshada isku timaadaysa in kala dhaxgalaysa لكم أنا كنا قاعد برا كخمنا كله هو دقيق أركله كله Soomaaliya gaar ahaan dhalinyaro atooshare iyo marwadiisa hal laga leexdo annaga waxaan u taaganahay tulanka ummadda Soomaaliyeed cid walba ay ahaato cid ku haysta inaan gacan bir ah kaga qabano hadii laga leexan waayo gacan bir aan ku qabanayna cid ay lamaanaha ka soo sheegtaan ama aan ku aragnay dhaqdhaqaaq waa digniin kaleexo